السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. غارتي دقالي قوادين سلامي اسبتال كان هدو كودا وهاي أنا جي وحصل سعنو قروح كديجله أم بيدا حقو ناقص يهريا ورقة وطا إيدي بالورقة فاميلي امباير ما أنت والله دعاء إن كروا ورقة واتران نتيجة إسكان كشل يساري نتيجة ده ما أنت دكتورك أو يسوع شيء صدق سيابد مدة نقول هسه صعب كي قروح كديجله مدك وضوح إنه كن كرتاح ولا جام كمان كرويلي جالسان لي أهانيسا هذا وين خاصة حنونة يجوا هسه صوته صدق صراحة كبدن حالة دي سانتهاي qofka meel la leena fahmi karo xaaladda nooca marka ay tahay tan labaadna waxa ay tahay in la dhoo xididada lugtada way fiican yihiin qalina lagu sameeyna ama waa la jibina ama bir iyo waxa la gelina natiijada waa taas xogaa way iiron tahay maxaa yar baa korto waa kaga maarmi karaa natiijada saddexaadna waxa ay tahay in la dhaho in xididada lugtada waxba laga ma qaban karo laakiin qalab lagu gelin kara dhabarka ilaa lugta ku xirmaayo adigana caadi u soconaysa xogaa garabkan u liicaysid waxaas waa joojinaysa baa kortana waa tuure hadii taas la dhahana way ii fiican tahay laakiin dhakhtarka shalamido iga nixiya waxay tahay markuu dhahay gacanteeda qabo gacanta isu taag waan ka qabto xodha xoog u qabo gacanteedu tijaabo ka qaadayay haddana gacanta kale oo tijaabo ka qaada labada mar saas u qabto waa xoojiyay markaas uu kor xogaa waa ka roon tahay laakiin xanuunkan wuxuu yiri ma ahan mid oo istaagayo waa u soconayo yiri sababtoo awal labada lugood isku mid ma ahayn mid ay fiicnad laakiin hadda waxa uu labada lugood inay waxba isdhaamin xogaa xanuunka waa u socda sida uu sheegay sax waaye haddii uu xanuunka dhabarka gaaro waxa macquul xataa in ay ratinimada saameeyso in aan istaagi waayo in aan wiliga iska fadhiyo aan xataa talaabo qaadin oo tuunji waxba laga qaaday noqon kartaa marka ilaahay iyo ma ka sameedaas niyadeeda wallahi walwal weyn ku abuuran maanta waxa la fiiri ilaahay wuxuu leeyahay la taqnadu min rahmatillah rahmat ilaahay ma laga quusto sidoo kalena rajada waa wax kaliya nafsada bini'aadamka lagu sasabo marka hope never dies rajo qurux badan si aan kaado qurux badnaado caafimaad insha Allah wallahi beentaada ma saaxiibkay qaar Allah ka dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa cimri dheer caafimaad cibaado suban dhamaanteen inuu wada siiyo walaalahayga muslimiinta oo waxay idin ka codsanayaa maanta inaad ii soo duceysaan ducadiinan u baahanahay wallahi niyadeeda walaa weyn ku abuuran waxa la dhihi doon waxa ay yihiin ma aqaano laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa in doctorka afkiisa oo ka keeno wax waa laga qaban karaa xataa rajaan yeelanaya maxaa yeelay xaaladeeda aad ay u adag tahay oga culayskayna wuu badanayaa haddii culayskay kor oo batana tan hoos way u dhamaatay marka ilaahay waxaan ka baryayaa sida roon rabbiya ogey meesha qeyrka ku jiro ilaahay inuu waafajiyo ii soo duceeya maanta ducadiina u baahanahay الله كو عافيه إلهي ريدا كو رمي إن مع العسر يسرها عليسك بدن فتيدا كدنبيو إلهي سبحانه وتعالى عليسك كان فتيدا نوغو بدلو حيلا wax badan aan san u soconay wax badan aan dhibtooday wax badan aan murugooday wax badan aan iska silcay laakiin maanta waxaan rabaa natiijo wanaagsan inuu ilaahay ii soo yeeriyo inta waxa ay keenay caafimaad ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaadkayga meesha uu ku jiro in ilaahay uu waafajiyo صاحبكي قالي هايو نيد ونكسنايو أديكني يدعي وحلاقيها بعض كمية ماشي كنت راح ألقف دعي سنو إلهي أقبله